taariikh nololeedkii Putin wariyihii loo diiday in lagu qoro buugaagta taariikhda markii ay dhacday xukuumaddii koonfurta Vietnam ee Mareykanka taageerada ka haysatay sanadkii 1975 Putin halkaas ayuu joogay isaga oo matalayay garabkii ay guushu raacday ee Vietnamta waqooyi balse markii uu dagaalkii dhammaaday waxa uu noqday qof la iska nacay magaciisana waxaa laga tirtiray taariikhda dalka Vietnam. Tin waxa uu geeriyooday isagoo da'diisu ay ahayd 90 sano. wariyihii BBC-da ee Ga Pham ayaa ka soo waramaysa ninkan oo ay taqaanay xilli galab ah oo ay ku beegneed taariikhdu 30kii bishii Abriil ee sanadkii 1975 ayaa waxa uu shir weyn oo muhiim ahi ka socday aqalka madaxtooyada ee Saigon halkaas oo ay ku shirayeen General Dong Phan Big Min iyo raggiisii. miis weyn oo hor yaalay ayaa waxaa saarnaa cunto iyo cabitaan loogu talagalay iyaga balse cid cunaysay ma ayna jirin oo waxaa laga fekerayay sida laga yeelayo xaaladda cakiran ee markaa taagneyd xilligaas. waxa ay ahayd dhowr saacadood uun ka hor markii ay taangiyada waqooyiga Vietnam ay soo jebiyeen derbiga madaxtooyada. General Big Min isla markiiba waxa uu gudbiyey qoraal uu ku muujinayo in uu isdhiibayo waxaana uu ku sheegay raadiyaha inuu xilka ka degay isaga oo noqday madaxweynihii ugu dambeeyey ee dowladda Saigon. Putin markaas waxa uu ahaa wariye ka tirsan militariga ahna laba xidigle korneyl ah oo la shaqeeyay ciidamada maamulkii waqooyiga Vietnam ee markaas dagaalka ku gacan sarreeyay. waxa uu ahaa sarkaalkii ugu darajada sarreeyay ee ciidankii la wareegay madaxtooyada Saigon markii la sugayay in madaxweynaha laga adkaaday uu wareejiyo awoodda maamulka. waxaa lagu xasuustaa inuu madaxweynahaas ku yidhi maxaad wareejisaa awoodba mabalihide. waxa uu aad ula faraxsanaa guusha ay u soo hoyatay garabkiisa isaga iyo malaayiin kale oo reer waqooyiga Vietnam ah. waxa ay muddo 30 sano ah u soo dagaalamayeen waxa uu si adag u aaminsanaa in uu ahaa waajib diimeed. maanta waa maalin farxadeed. nabaddii ayaa soo noqotay. dagaalkii wuu dhammaaday. dhammaan dadka reer Vietnam way wada guulaysteen. keliya kuwa u daba dhaqaaya Mareykanka ayaa guuldaraystay ayuu yidhi Master Tin wuxuuna ku yidhi warbaahinta. muddo 10 sano ah markii ay ka soo wareegtay taariikh qorayaasha dalka Vietnam ayaa si buuxda u cidhib tiray magaca Putin iyo taariikhdiisii oo idilba. xitaa waxaa buugaagta taariikhda laga tiray sheekooyin ku saabsanaa guulihii uu qaybta ka ahaa maalintaas taariikhiga ah ee la jebiyey maamulkii koonfurta Vietnam. sababta sidaas loo sameeyey waxay ahayd in Master Tin uu ka goostay dowladda uuna la saftay reer galbeedka. dagaalka kadib Vietnam ma aysan helin wax loogu yeedhay jannada oo ay soo wadeen maamulkii bulshaawiga ahaa ee xukunka qabsaday. dad fara badan ayaa ku hungoobay rajadii ay qabeen inay xaalad fiican geli doonaan. markii uu burburay xiriirkii taariikhiga ahaa ee Vietnam kala dhexeeyay Shiinaha uuna isku beddelay dagaal waxaa dalkaas ku habsaday dhaqaale darro baahsan iyo in ay ka go'doomaan caalamka intiisa kale. Putin waxa uu cadho kula dhacay raggiisii ka tirsanaa dowladda laakiin markii laga dhigay tafatiro ku-xigeenka wargeyska Han Dan waxa uu indhihiisa ku arkay tabardarrada dowladda ka haysatay la tacaalidda dhaqaale xumada. sanadkii 1990kii markii lagu casuumay inuu ka qayb galo shir ka dhacaya magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayuu go'aansaday inuusan dib ugu laabanin magaalada Hanoi ee caasimadda u ah Vietnam iyo guud ahaanba dalkaas. lagama filaynin inuu tallaabadaas qaado maadaama loo arkayay inuu xubin muhiim ah ka ahaa xukuumadda. hase ahaatee hadalladii uu go'aankiisa ku sababeeyey ee uu ka sheegay waraysi uu BBC-da siiyey ayaa ruuxay maamulkii ka arriminayay Hanoi. Do Phan oo ahaa wariye rugcaddaa ah oo ka tirsanaa laanta BBC-da ee waddanka Vietnam ayaa yidhi bilowgii sanadkii 1990kii waxaa bilaabmay inaan dareemo sida uu Master Tin u sii nacayay dowladda. bishii November waxaan ku kulannay Paris ilaa inta uu ka geeriyoonayay. Master Tin waxa uu ahaa qof ay mamnuuc ka tahay inuu cagta soo dhigo dalka Vietnam. waxaa ka mamnuuc ahaa
inay waraystaan telefishinada dalkaas xitaa may jirin hal idaacad telefishan ama wargeys oo soo hadal qaaday geeridiisii. wargeysyada aan dhimashadiisa wararkooda ku xusin waxaa ka mid ah qaar uu hore tafatiro uga soo noqday. tallaabadii uu mastartiin uga goostay dowladda waxa ay saameyn xun ku yeelatay qoyskiisa, gaar ahaana sannadihii 1990meeyadii. xubnaha qoyskiisa ayaa su'aalo qallafsan la weydiin jiray, iyagoo mararka qaarna la jirdili jiray. inantiisa oo lagu magacaabi jiray liin ayaa aabbaheed markii ugu horraysay si toos ah ula kulantay sannadkii 2015 markii ay booqasho qarsoodi ah ugu tagtay magaalada Paris. dadka isaga yaqaanay waxay ogaayeen inuusan dib ugu noqon doonin Vietnam, laakiin mastartiin waxa uu qabay inuu maalin uu ku noqon doono waddankiisa. riyadaas ayaa noqotay mid isaga la gashay iilka.